bismillaahi waxaan bilaabeynaa ama hordhac ka bixinaynaa maadada biochemistry-ga si aan u fahanno maadada biochemistry-ga ka hor waa inaan sameynaa hordhac ama gogol xaar si faahfaahino badan iyo macluumaad badan oo casharadana ku xirnaan doona aan hadda usii fahanno. marka qaybtan waa qaybta koowaad ee maadada introduction-ka maadada biochemistry-ga. qaybtan waxaan uga hadli doonaa intaan ciwaan oo kale ah inaan marka hore qeexitaan ku sameyno maadada biochemistry-ga iyo asalkeeda. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa qaybiskeeda iyo qeybaha hoos imaanaya, taybiskeeda iyo subtaybiskeeda waan ka hadli doonaa. qaybta saddexaad waxaan ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay maadada biochemistry-ga ay u leedahay cilmiga caafimaadka. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa maadooyin kale ee maadada biochemistry-ga la xiriira. ugu dambeyn waxaan ka hadli doonaa maadada biochemistry-ga qeybaha ama ciwaanada aan ka hadli doono ay ka kooban tahay. haddaan ku bilowno qaybta ugu horeysa qeexitaanka maadada biochemistry-ga, what's biochemistry and its history. inta aanan qeexin biochemistry-ga waxaan rabnaa inaan qeexno chemistry waxa uu yahay. chemistry oo naqaan chemistry is a science that deals with elements and atomic relations of atoms. waxay ka hadashaa oo diiradda saartaa chemistry-gu elementiyaasha iyo xiriirada ka dhexeeya atomska ama atomic. sidoo kale waxay ka hadashaa compoundska kala duwan ee elementiyada ay sameeyaan bay ka hadashaa waa chemistry-ga. marka biochemistry muxuu noqonayaa isaga? biochemistry proliders asna sidoo kale wuxuu diiradda saaraa chemistry of life and living process. chemistry wuxuu diiradda saaraa chemistry wuxuu ka hadlaa chemistry-ga noolaha ama nolosha iyo sidoo kale processka ka dhexdhacaya noolaha ka dhexdhacaya. marka chemistry is a science of matter. haddaan isbarbardhig ku sameyno chemistry iyo biochemistry, chemistry is a science of matter and biochemistry is a science of living matter. chemistry waa cilmi ka hadlaya maatarka ama shayaasha. biochemistry waxa waaye cilmi ka hadlaya shayaasha nool siday u shaqeeyaan. marka the term biochemistry, ereyga biochemistry ama magaca biochemistry waxaa soo saaray nin la oran jiray Carl Alexander Nobel. wuxuu soo saaray 1903. haddaan ku socono qaybiska biochemistry, biochemistry waxaa loo kala qaybiyaa ugu horeyn 3 fildi oo waaweyn oo kala ah structural biology oo ka hadasha how biological molecules are built. waxay ka hadashaa biological moleculeska ama isku dhisyada biological ahaaneed sida ay u samaysan yihiin. sidoo kale qayb kale jirta oo ka hadasha ayana enzymology-ga ama lagu barto enzymada iyo siday u shaqeeyaan. sidoo kale qaybta ugu saddexaad oo ka mid ah fildiska biochemistry waxaa la yiraahdaa metabolism. qaybtan waxay xoog saartaa metabolismyada. metabolismyada waxay ka samaysan yihiin 2 process oo asaas ah oo kala ah qayb wax dhisid ah oo la yiraahdo anabolism iyo qayb wax burburin oo la yiraahdo catabolism. qaybisyada ama subtypeska ay leedahay biochemistry laftigeeda iyadoo ay kala baxayso waxay noqonayaan intaan qayb ay hoos imaanaysa aad ay u fara badan yihiin, laakiin qaybaha ugu muhiimsan baan ka soo qaadanay. qaybta koowaad oo ugu muhiimsan waxaa kamid ah neurochemistry. waa qayb ka tirsan biochemistry-ga oo ka hadasha chemistry-ga nervous system-ka ama neuronska chemistry-gooda. qaybta labaad waxaa la yiraahdaa bioorganic chemistry. iyadoo waxay xoog saartaa biological processeska iyadoo la isticmaalayo chemical methods. processyada nooleyaasha dhexdhacaya oo loo fiirshay qaab kimikaaleed baa loo yaqaana bioorganic chemistry. qaybta saddexaad waxaa loo yaqaana clinical biochemistry. iyadoo waxay xoog saartaa baaritaanada iyo daweynta qofka si clinical ah ayuu la xiriirtaa. marka qofka in la baaritaan lagu sameeyo, la daweeyo dheecaanadiisa iyadoo la baaritaan lagu sameynayo. qaybtan physical biochemistry-ga waxay ayana lagu bartaa microscopics-ka waxyaalaha waaweyn sida fikradaha uu qabo physics-ka uu qabo iyo conceptyaasha physics-ka sida motion-ka iyo energy-ga iyo force-ga iyo time-ka iyo reactions-ka ama biochemistry-ga processyada dhacaya ay ku dhacayaan baan qaybtan ku baraynaa. marka physics iyo biochemistry oo isla xiriira waa qaybta biochemistry uu kala xiriira qaybta waxyaalaha physics-ka ah. qaybta shanaad waxaa loo yaqaanaa molecular genetics. molecular genetics waxay ka hadashaa molecular structure of genes. DNA-da waxay ka samaysan tahay qaybkaas waxaa loo yaqaanaa marka genes. molecular genetics waxay ka hadashaa structure-ka uu ka samaysan yahay gene-ka ama qaybta kamid ah DNA-da, their cellular and subcellular function iyo shaqooyinkeeda ay ku dhex leedahay sel gudihiisa. sidoo kale qaybta kale waxay noqonaysaa biochemical pharmacology. qaybtan waxay xiriir la leedahay dawooyinka iyo pharmacology-ga jirka ku sameynayo marka jirka soo galaan dawooyinka jirka isticmaalo sida qofku ugu dawoobiyo iyo sida qofku ugu sumabiyo ay ka hadashaa processyadaas
waxaana hoos imaanaya laba process oo loo yaqaano pharmacokinetics iyo thermodynamics. Pharmacokinetics waxaa la yidhahdaa habka jirku uu dawada ula falgalayo ama uu sameynayo dawada absorptionkeeda iyo metabolismkeeda, waxaas wax la isku yidhahdaa pharmacokinetics. sidoo kale thermodynamics waxaa la yidhahdaa waa sida dawadu ay jirka wax uga bedelayso, jirka sida ay ku sameynayso. qaybta toddobaad oo ah qaybta ugu dambeysa oo loo yaqaano immunochemistry. qaybtan waxay xooga saartaa chemistryga difaaca jirka ama immunityga. chemistryga difaaca jirka marka laga hadlayo marka waxaa inta badan xoog la saaraa oo laga hadlaa antigeniska iyo antibodieska iyo receptorska iyo waxyaalo kale oo quseeya reactionada ka dhex dhacaya immune systemka iyo guud ahaan difaaca jirka oo dhan. haddaan u guda galno marka muhiimadda ay leedahay biochemistryga marka sida saxda ah horta biochemistryga waxaa waaye maado aada ugu muhiimsan medical science-ka. la-aanteedna medical science-ka waxaa ma ahaadeen. marka muhiimadeeda wax lasoo koobi karo ama wax laga dhihi kara maahan. marka tusaale ahaan haddaan kasoo qaadano muhiimadda ay leedahay medical biochemistryga, muhiimadda ay leedahay waxaan dhahaynaa haddii aysan jiri lahayn dhakhaatiirta oo biochemistry stayaasha ah oo chemistryga aadka ugu xeel dheer, isku dayada ama baaritaanada ay sameynayaan oo ay kusoo saarayaan dawooyinkan muhiimka ah iyo qalabkan loo isticmaalo in wax lagu daweeyo, wax lagu baaro, haddaysan jiri lahayn marka mana jiri lahayn wax daweeye, mana jiri lahayn qalab lagu soo saaro dawooyin lagu soo saaro. marka sidaa daraaddeed wax walba oo muhiim ah waxaa lagu soo saarayaa oo dawooyin ama qalab waxaa lagu soo saarayaa biochemistry ahaan iyadoo loo fiirinayo. marka sidaa daraaddeed biochemistry waa maado aada muhiim u ah caafimaadka oo dhan. maadada biochemistryga maadooyinka oo caafimaadka dhammaantood way la xiriirtaa, almost every subject of medicine aad bay la xiriirtaa. laakiin tusaale ahaan haddaan soo qaadano maadooyinka biochemistry sida aadka xiriirka ula leedahay waxaa kamid ah molecular biology oo inta badan diiradda saartaa sida ay u shaqeeyaan DNA-da, siday u shaqeyso, qaabka u samaysan tahay, samaysankeeda iyo RNA-da sidoo kale qaybskeeda waxyaalaha noocaas oo kale DNA-da la xiriirta inta badan ka hadasha, iyo sidoo kale geneticska oo la xiriira cudurrada ku dhaca jiin khaldama ama jiin cudurrada inta badan la xiriira oo iyadana ka hadasha geneticska. sidoo kale waxay leedahay maadada pharmacology-ga oo lagu barto dawooyinka iyo qaabka u shaqeeyaan iyo sida ay waxtar u yeeshaan iyo sida ay u shaqeeyaan effectigooda. sidoo kale waxay xiriir la leedahay maadada loo yaqaano pathology-ga oo iyadana ka hadasha cudurrada iyo sida u dhacaan iyo qaabkooda iyo sida dadka ugu dhacaan iyo xubnaha ay ku dhacaan iyo ka hadasha. qaybta ugu dambeysa oo xiriirka la leedahay waxaa kamid ah physiology oo kale oo iyadana lagu barto sida normalka jirka caadiga uu u shaqeeyo. contents of biochemistry. marka biochemistryga waa maado aada u weyn, laakiin ciwaanada ugu muhiimsan ama qaab unit ahaan haddaan usoo koobno waxay noqonayaan unit koowaad wuxuu noqonayaa protein structureska ama qaab dhismeedyada proteinada iyo shaqooyinka proteinada aan ka hadli doono sida amino acidska, structure of protein, globular protein, fibrous protein, noocyada proteinada aan ka hadli doono shaqooyinkooda iyo enzymada shaqooyinkooda waxaas aan ka hadli doono. qaybta labaad waxaa loo yaqaana bioenergetic and carbohydrate metabolism oo ka hadli doonta sida energyga loo sameeyo iyo carbohydrateska sida energy looga soo saaro. ciwaanada hoos imaan doona waxaa kamid ah glycolysiska, Krebs cycle, gluconeogenesis, glycogen metabolism of monosaccharides and disaccharides, pentose phosphate pathway. unitka saddexaad waxaa laga hadli doonaa lipid metabolism. iyadana waxaa hoos imaan doonaa dietary lipid metabolism, cunada aan cunayno lipidka ku jira sida metabolism lagu sameeyo, iyo sidoo kale fatty acids, keto bodies sida loo sameeyo, triglyceride metabolism sida lagu sameeyo, iyo sidoo kale phospholipids sida lagu sameeyo metabolism, cholesterolka iyo lipoproteinska iyo steroid metabolismkooda. intaas oo dhan waa baran doonaa. unitka afraad waxaan ku baran doonaa nitrogen metabolism, compoundska ama molecularada ay ku jirta nitrogen sida amino acidska metabolismkooda suu u dhaco. unitka shanaad waxaan ku baran doonaa integration of metabolism, metabolic effect of insulin iyo glucagon baan ka hadli doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa diabetic mellitus cudurkaas meeshaan ku sharxi doonaa. sidoo kale waxaan ku sharxi doonaa obesity ama cayilka wuxuu ku jiraa qaybtan oo integration of metabolism. waxaa kaloo ka hadli doonaa nutritionka qaybtaas iyo soo hoosgalaya. waxaa kaloo soo hoosgalaya vitaminska waxay soo hoosgalayaan qaybta shanaad integration of metabolism. qaybta ugu dambeysa ama unitka lixaad waxaa loo hadli doonaa storage and exploration of genetic information, sida loo kaydiyo loona soo bandhigo xogta dhaxaltooyada ayaan ka hadli doonaa oo geneska iyo DNA-da iyo qaybtan ayaan si xooga diiradda u saari doonaa.